ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya isla markaana qayb ka ah askar uu maamulo xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar ayaa xalad saqdi dhexe la wareegay gacan ku haynta xarunta degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka mid ah booliiska Soomaaliya. ciidankan oo wata gaadiid dagaal ayaa isku ballaariyay gudaha iyo bannaanka degmada waxaana la sheegay inay si wadajir u soo direen xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar iyo xildhibaan Dayax Axmed Cumar oo labadooduba diidan xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee degmadaas. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa 22kii bishii hore ee Juun wareegta ka soo baxday xafiiskiisa waxaa xilkii looga qaaday gudoomiyaha degmada Holwadaag Mustafa Cali Khayre waxaana lagu bedelay Bashiir Cabdi Maxamed. gudoomiyaha magacaaban ee Bashiir Cabdi Maxamed waxaa lagu magacaabay talada xildhibaan Mustafa Cali Dhuxulow waxaana la sheegay in ninkan oo la shaqayn jiray Cabdinuur Darmaan oo sheegan jiray inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya isagoo ku magacaabnaa ku-xigeenka Cabdinuur Darmaan. halka gudoomiyaha xilka laga qaaday oo ka tirsanaa xoogga wadaniyiinta ee aadka ugu dhawaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin kuwa ammaanka ah maanta waxaa la filayay in xarunta degmada Holwadaag lagu qabto xaflad xil wareejin ah waxaana ka qaybgeli lahaa gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, balse degmadii waxaa xalay la wareegay ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga Soomaaliya balse qabiil ahaan u abaabulan isla markaana ka mid ah ciidan oo xukumo xildhibaan Jacfar kuwaasoo uu la soo wareegay ama la shaqayn jiray intii uu ahaa gudoomiyaha degmada Dayniile. labadan xildhibaan ee kala ah Jacfar iyo Dayax ayaa ku doodaya in gudoomiyaha la bedelay kaliya lagu bedeli karo qof jufadiisa ah, halka xildhibaan Mustafa Cali Dhuxulow uu ku doodayo in saami qaybsiga beesha uu siisa ku soo laabtay mar haddii uu meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. shacabka degan agaarka xarunta degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir ayaa xalay iyo saaki ka baxay guryahooda iyagoo ka cabsi qaba inuu halkaasi ka dhaco dagaal u dhexeeya labada ciidan maadaama ay korortay xiisadda ka taagan aagga degmadaasi. gudoomiyaha xilka laga qaaday ee Mustafa Cali Khayre ayaa Muqdisho ka baxay 2dii bishan Julaay waxayna wararku sheegayaan inuu xajka aaday halka qaar kalena ay sheegayaan inuu galay safar aan la ogeyn waxa uu ku salaysan yahay. sida aan xog ku helnay waxaa shaqayn weysay warqad uu garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde u dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish taasoo amraysa inuusan dalka ka bixi karin mas'uulkan diiday inuu xilka wareejiyo. xildhibaanada siyaasiyiinta iyo dhaqanka matala mas'uuliyiinta la isku bedelay ayaa ku guuldareystay in arrintan xalliyaan iyadoo la qabtay dhowr kulan tan iyo markii ay soo baxday in xilka laga qaaday gudoomiyihii hore isla markaana la magacaabay gudoomiye cusub. lama oga sida loo xallin doono xiisadda maanta ka taagan degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir iyadoo ay xusid mudan tahay inaysan maanta wax shaqaha ka socon xarunta degmadaasi waxaana dib loo soo celiyay mas'uuliyiin oo ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda degmada iyo qaar kale oo ka mid ahaa shaqaalihii xarunta u shaqo tagi jiray. ma jiro wax war ah ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir iyo dhinacyada kale ee isku haya xarunta degmada Holwadaag isla markaana ay ka dhaxayso doodda xilka qaadista iyo magacaabista. xiriir aan la sameeyay ayaan heli weynay dhammaan dhinacyadaasi.